komishinka qaranka Soomaaliland ee xakamaynta xanuunka HIV gobolka Saaxil ayaa wacyigelin ka bilaabay iskuulada Berbera dugsiga sare ee Bursade ayaana saaka safka isxaadirinta ay taagnaayeen boqolaal arday oo wiilal iyo gabdho leh waxa barnaamijka baraarug ee naftaada ilaali oo iba furay isduwaha xakamaynta xanuunka HIV ee gobolka Saaxil Kayse Maxamed Cabdi iyo waliba maamulaha iskuulkaasi Sheekh Mustafa oo ugu tusaaleeyay ardayda halista xanuunkan oo fiditaankiisu baryahan dambe uu soo kordhay lanoo ka duulayna siyaasadda komishinka qaranka siyaasadda gudoomiyaha komishinka qaranka HIV/AIDS-ka oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu kordhay sanadkiina dhaafay ayuu kordhay xanuunka HIV/AIDS-ku kororka ayaa ku yimi sida awgeed barnaamijkan baraarug ayaa loogu talagalay markaas in lagu wacyigeliyo markaas hadafkiisuna uu yahay markaa inaad ogaataan habka uu fido amba qaabka uu fido xanuunka HIV/AIDS-ka komishinka qaranka xakamaynta HIV/AIDS-ka gaar ahaan gobolka Saaxil waxaanu noo diyaarsan markaa ama noo qorshaysan inaanu macallimiinta siino markaa tababar HIV/AIDS-ka sidii ay wacyigelin uga sameyn lahaayeen dugsiyada uga sameyn lahaayeen waxa kale noo qorshaysan markaas inaan wacyigelinta gaadhsiino ilaa degmooyinka hoos yimaada gobolka Saaxil soo booqdeen komishinkii AIDS-ka qaranka ee Soomaaliland waliba qaybtii gobolka Saaxil mas'uuliyiintii ka socotay waxaan ku mahadnaqaynaa inay halkan inoogu yimaadaan oo ay wacyigelin naga siiyaan iyadoo tiradii AIDS-ku ay sanadkan aad u kordhay guud ahaan Soomaaliland iyo waliba gobolkeena markaas ay dhalinyarteenu uga digtoonaadaan xanuunkaas inaanay si sahal ah aanay uga dhicin ayaa waxaynu ku hambalyeynaa inayna soo booqdaan oo inaga wacyigeliyaan barwanagiba Cabdi Cige oo muddo 17 sano ah ka hawlgalaysay xarunta caafimaadka ee xanuunkan lagu dabiibo ee magaalada Berbera ayaa qeexday xanuunkan iyo waxyaabaha mucjisada leh ee ay muddada ay dadkaasi u shaqeynaysay ee aragtay waxaan dhigtay Nagiibe Cige Cabdi waxaan ka shaqeeyay qaybta HIV/AIDS-ka waxaan ka shaqeynayay muddo 17 sanadooda 17 sanadood yacnihi waxaan arkay ilaaha raxmaanka hoon baa ka sheekeyn kara gobolka waan ka damqadaa hase ahaatee maadaama maanta la bilaabay wacyigelin HIV-ga in laga hadlo aad iyo aad baan soo dhaweynay waan ku faraxsanahay waxa weeyaan dadkan xanuunsanaya waa dadkeeni rag iyo dumarba xanuunku uu nagu batay saamka uu sheegay inanka komishinka AIDS-ka ka socda 7% kacay sanadkan kan soo dhaafnay waxaasina waxa weeyaan wacyigelin la'aan waxa weeyaan xanuunka HIV-gu horta marka hore waa xanuunka intiina badan wada garanaysaa waxa loo soo gaabiyay HIV waxa la soo gaabiyay human immune deficiency virus يعني xanuunka wuxuu burburinayaa difaaca jidhka qofka bini'aadanka dabeetana cudur kasta uu nuglaanayaa marka wax weyn hadalka si badinina xanuunka HIV-gu maadaama ay nagu badan yahay idinkuna dhalinyarada wadanka soo kacaysatiin waxaanu jecelnahay inaad ilaalisaan wuxuu baan leeyahay anigu ka digtoonaada wacyigelinta aan idin siinayna maanta weelayo sida oo dadkiina gaarsiiya bulshadiina gaarsiiya dadkana aad koorina dadka xanuunka la idinku sheego runtii waxaynu isla naqaanaa inagu inaynu faquuqnayna wallahi hebel uu qabaayeen soo sheegno afaquuqina wadad walaalihiina soo dhaweysta dhakhaatiirta kala duwan ee wacyigelintan ka qayb qaadanaysay Dr. Maxamed Cabdilaahi Dr. Xasan Cabdiraxmaan Jaamac iyo Dr. Xamse Aadan Haybe ayaa iskaga daba maray dariiqa ugu habboon ee wax ka taraya wacyigelinta xanuunkan halista ah ee HIV xanuunkan HIV sanadkii 2021 ee na dhaafay 7% ayuu kor u kacay taasi waxay ka dhigan tahay in dalkeena uu ku soo badanaya xanuunkani hay'adda ka hortagga xakamaynta AIDS-ka iyadoo ay taa ka duulayso waxay samaysay barnaamij wacyigelineed oo dalka oo dhan laga fulinayo saas awgeed waxaynu u baahannahay gobolka Saaxil ahaan inaynu barnaamijkan wacyigelintan u dhug yeelano oo aynu weelayno wacyigelintuna iska kaashanayaan qaybaha kala duwan oo ugu horeeyaan komishinka u xil saaran wacyigelinta iyo ka hortagga iyo daryeelidda dadka qaba xanuunka HIV/AIDS-ka ee Solnak waxa halkan aan idinku nimid inaan idin sheegno fariin waxa jirta wacyigelin la'aan badan oo bulshadeena ka dhex jirta siyaabuhu ku faafayay
dadka khatarta ugu jira sidii loola macaamilayay qofkii xanuunka qabay sidii loola macaamilayay xanuunkani waa xanuun siyaabo kala duwan ku faafa wuxuu ku faafaa galmada wuxuu ku faafaa in la wadaaga irbadaha oo irbad qof xanuunkii qabay lagu muday adigana maxay lagugu mudo in sakiin qof xanuunkii qabay jartay adiga ku jirto maqas qof xanuunkii qabay lagu shaqeeyay ama lagu jaray in adigana lagugu jaro in imika waxa soo batay waxyaabaha inagu soo batay soo kordhay waxa kamida daraagiskii ama waxa weeyaan mukhadaraadkii iyo irbada lagu kala isticmaalo وياسين جامع علي تلفزيون كعالمي قاه برشة تي في مقالة بربراء.